اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ارتوادي والسلام دمانتين إن شاء الله تعالى. كل يوالا كلام مقنع خير بالغو كلام مقنع إن شاء الله تعالى. وكم مقلينا الحمد لله إله با مهد إسكالي إن والبو أنه يركل مقنعني مدة تقريبا وحن ملاين دور بيوض بإذن المولى جل وعلا. ولا ليال توفيق الله النوافجيو أن ما أنت وحن إن شاء الله تعالى بإذن المولى جل وعلا درسي لبي اللحدناد يكسب سنة نبض قيسك إلهي جل وعلا وحن إلهي كبرين لمانتين وحن لمانتين كبرين إلهي جل وعلا إنه إلهي سبحانه وتعالى نبض قيسكين إلهي إذنكي قيسك أردن نبض إلهي سبحانه وتعالى إنه قريهن وقليو بإذن المولى. وأهل السلام وعليكم السلام دمانتي وهذا السلام ولا في فوزية دمانتي وهذا السلام عبد الناصر محمد كداذاي عبد الناصر وانكو السلام ولا محمد جبريل وانكو السلام كوثر محمود وانكو السلام هذا محمد كداذاي ولا الله يبارك فيكم مرتا وحنم مريني انت بلاوين درسي جاينان سلامتي إذن كقاعدوي ولا شي صفية ولا شي كوثر وعليكم السلام ولا دمانتي وهذا السلامين أنا قررت واسكفي عنها هاي حاجتي نواتي قرأ فردي القرآن بآخريسا أن غيركنا إله با محد إسكاله إله جل وعلا وحن دمانتي ندير رجينا يا ونمضى الإسلام المالو بأجوغان ورجينا يا إنه إله سبحانه وتعالى خير يا بركة إنه إله سبحانه وتعالى نوافج أن وعليكم السلام ولا فردوس وانكو السلامي ولا فوزي وانكو السلامي اللهم لك الحمد وأساس أركيسان وحوي حنوصل قال إن شاء الله تعالى حسوسين إلهي درتي إيو إن شاء الله تعالى إنهم بالقيب سنو وناقة قريها أن نكربنو إن والبو إلهي جل وعلا وحنو سمي بني آذن كسيديسا أن مركا لليه هاي قويس وصان نشاقي وحوي والله بقف إلهي جل وعلا سوكيني إلهي سبحانه وتعالى درتي kuwada noolaaday oo dadaalaya labaduba waxay ku dadaalayaan inay insha Allah ta'ala ay kulli baanaan adduunyo aakhiro inay reer dhisaan inay wada noolaadaan in ay maxaan ku raadaay ubad korsadaan inay diinta maxaan ku raadaay iyo ilaahay dartii isku guursadeen in ay insha Allah ta'ala ku wada dhaqmaan ayaa qof walba wuxuu raadsanayaa markii uu guursanayo wuxuu raadsanayaa إن إلهي إذن كي إن شاء الله تعالى باهي الضنبا باهي إلهي جل وعلا بني آذن كوكو أبوري دف يدبن دف إيو محاكو دف إيو دبن إلهي جل وعلا واكو أبوري قولي وحوي هريره إنو دن وحا نقاها الرئي أما دين عيد النقاحي والضنبا أن وحوناكس النواي وحدب أنواي إلهي جل وعلا لبضا قف ماشا اسكو قلت مي تري اسكو حلاشتي دكتي waxay u yimaadeen inay maxaan ku raadaay ay ku caafimaadaan iyaga oo ku caafimaadaya haddana waxa meesha ku jirta waxa weeye ayaa waxa imanaysa dhibtaasina markay korodho wal billahi ilaahay dhibno noomaka ilaahay dhibta naga qaada waxay noqonaysaa dhibtii waxay ku abuuraysaa cudur wanta waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan cudurkaas ka hadlo cudurka guryaha laba nooc wey midna wuxuu ka dhashaa dhibaatooyinka guryaha ka dhaxdhaca dhaxdooda marka ay labada dhinac uu midi dhinacu gaabiyey ama ninka rag ah noqoto dhinaciisa ama qofta dumarka ha noqoto dhinaceeda laana ilaahay jalla wa ala labada qof wuxuu soo keenay inay sacaawiyaan maxaa ilaah isku caawinayaan waxa isku caawinayaan wa tacaawanu ala albirri wattaqwa waxay isku caawinayaan cabsida ilaahay iyo wanaaggaas waxa weeye wanaaggeena oo dhanba diinteena ku dhisan tahay waa wanaagga bani aadamku uu ku dhisan yahay hadduu wanaajiyo ilaahay jalla wa ala wanaag buu soo dejinayaa qofka wanaag baa korkooda soo deji hadduu xumaan la yimaadana kulley bad xumaan baa ku warwareegaysa oo xumaantaas waxa ku abuuraysa wax la yiraahdo cudur maanta walaalayaal tawfiiqda Allah na waafajiyo
waxaa laga yaabaa inaanad maqlin marka qaarkood inuu cudur jiro guryaha laysqaba labada isqabtaa dhexdooda inuu cudur jiro ayaana la ogeyn. walaalayaal labadaa cudurna waxa weeye waa mid waxa weeye qofka la guursaday ama qofka wax guursaday uu wato ayuu la imanayaa. waa badan yihin damac, xasad, maxaan ku dhahdaay waxa la yidhaha ego, waxa la yidhaha quruur, waxa la yidhaha kibir. waxaasoo dhan ayaa qofka bani aadanka waxa laga yaabaa sida cilmiga nafsiga ay sheegayaan qofku wuxuu la yimaadaa waxa dhanbe maxaan ku dhahdaay wuxuu ku soo koraa. lidalik ilaahay jalla wacala wuxuu ku soo koraa gurigii uu ku soo koray wixii ay ku koriyeen ayuu la yimaadaa. uu markuu reerka uu guursado ayuu la imanayaa tii isagoo qaba. si alla sidii ay aabihii iyo hooyadii u wada noolaayeen ayuu rabaa inuu ku nooleeyo guriga. maxaa dhacaya marka? qofkanna gurigoodii bay ka timi oo waxay rabtaa iyaduna sida alla si maxaan ku dhahda u baray aabaheed iyo hooyadeed ay u bareen noloshii ayay rabaan. labadii qof baa markaa iskugu yimi, waxay rabaanna inay wada qaybsadaan nolosha. maxaa markaa dhacaysa walaalayaal? tawfiiqda allahna waafajiye. waxaa dhacaysa in haddii ayna jirin meeshu, si fiican aan u fahamno, ilaahayna fahamsiiyo. ilaahay waxaan ka baray inuu dhammaanteen allahna fahamsiiyo. waxaan ka hadlayo sometimes waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo maya anaga maxaan ku dhaha saasaan u noolaynayo saasaan u jiraa. waxaan ka hadlaya waxa weeye wuxuu ilaahay jalla wacala uu soo dejiyey siduu ilaahay naga rabo iyo sida xaaladan aan imika u jeedno aan arkayno adduunweynaha meel walba oo la joogo nolosha lagu nool yahay iyo dhibaatada jirta aan arkayno ilaahayna tusay tii baan ka hadlaya. midna waa siduu ilaahayna rabo oo ilaahay jalla wacala uu rabo oo waxaanu rabnaa ilaahay idankii insha allahu tacaala inuu gurigeennaasina barwaaqo ku noolaado, caafimaad ku noolaado, nolol fiican ku noolaado, deganaan ku noolaado, kalgacayl ku noolaado, kalsooni ku noolaado, barako ku noolaado, kala dambeyn ku noolaado, ilmaha diintoo lagu koriyo ku noolaado. intii ayaanu ka rabnaa. ikhwaani waxibaa'i, allah jalla wacala ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahayna fahamsiiyo diinta ta u horeyso. diintaynaas oo ay ku jirta barwaaqo oo dhanba, ay ku jirta nicmo oo dhanba, ay ku jirta wanaag oo dhanba, ay ku jirta maxaan ku dhahdaay wax walba oon u baahannahay diintay ku jirta. maantana walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiye. dhibaatooyinkan aan arkayna saa noogu warwareegayaan furista, maxaan ku dhahdaay dilka iyo garaaca iyo maxaan ku dhahdaa iyo yaraysiga iyo dullinimada iyo in laysdulleeyo iyo in maxaan ku dhahdaa pressure laysa saaro, in la kala tago. intaasoo dhanba waxay noo keentay waa xaqii ilaahay jalla wacala iyo diintiisii oon ka tagay. waxaa kaleed aayadda qur-aanka dhegeysta. ilaahay jalla wacala uu leey aayaddaas waxaa laga yaabaa inay nolosheenno dhanba ay ku dhisnaanayso. nin walba raaxuu rabaa, nin walba wanaag buu rabaa, nin walba deganaan buu rabaa, nin walba wuxuu rabaa meel uu si fiican u dego, si fiican uu ugu raaxaysto. qoftii uu guursaday inay noqoto noloshiisa inta ka dambayso o dhan inuu raaxo uun ka arko. qofta dumarkaana odayganay guursatay ama odayganay maxaan ku dhahdaa ilaahay jalla wacala uu ka dhigay nasiibkeeda iyo calafkeeda uu ka dhigay, waxay rabtaa inay deganaan toos la joogto nolosha inta ka hadhay. ilaahay jalla wacala waxaan ilaahay ka baryaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala xaqana tuso, kadalika ilaahay jalla wacala xaqana tuso keliya tama inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo sahlo inaan xaqa aan ku camal falno. aayadda qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahy waana waxa haddaad u fiirsataan aayadda qur-aanka waxay sheegaysaa wax walba oo anagu maanta zamankan aan joogno, kii qurbaha u dhoofay, kii wadankiisa joogay, kii maxaan ku dhahdaay waxbarashada aaday, kii waxaasoo dhanba aaday, intii oo dhanba aan raadinayna waa nolosha wanaagsan, nolol wanaagsan. allahna fahamsiiyo. aayadda qur-aanka ilahay noogu sheegay wuxuu leey bacd acuud billahi min ashaytan rajim man camila صaalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba. fiiriya aayadda qur-aanka
إلهي با جل وعلا عليه من عمل صالحا قفكي عمل وناكسا لي ماده مميلها كلا دن آياتها كلا waxay loogu horeysay Ilaahay jalla wa ala wuxuu ku horeysiyaa iimaanka halkan Ilaahay jalla wa ala wuxuu u horeysiyaa amalka wanaagsan man amila salihan min dhakarin lab yadidig midkay rabto ha noqoto hadda amal salih wanaag oo kaliya tawlamu iimanine wa huwa mu'min isagoo iimaan leh waxa uu sameeynayo waxa uu amalka u sameeyay odayga inay cuntada u karinayso odayga maxaan ku dhahay taacada ay taacayso odayga waxa uu qabanayso wax walba ku saabsan ay u qabanayso maxay iyadoo iimaankeela Ilaahay jalla wa ala ayaa Ilaahay ba iga abaal marinaya iyadoo uu fiirinayn waxbaad ka dheefiyo ma waxbaad ka heli Ilaahay ba iga abaal marinay ninkana sidaas ilaa qofti uu keenay mas'uuliyadeedii uu qaaday uu maxaan ku dhahay ka soo kaxeeyay reerkoodii uu soo dajiyay isaguna intaas oo dhan wanaag oo dhanba uu qabanayo wuxuuna u qabanayaa Ilaahay ba iga ajarsiin huwa mu'min haddii labadaasi amalka wanaagsan wanaaga la isku qabanayo iyo maxaan ku dhahay kala dambeynta la kala dambeynay iyo maxaan ku dhahay kadib maxaa imanaysa Ilaahay jalla wa ala ayaa ballan qaaday فلنحيينه حياة طيبة وحن نوليننا أو نولينا لام تأكيد ينون بكجرة فلنحيينه حياة طيبة نولل وناكسن ولا لي نولش وناكسن أن محن كل هذا أن رادين ينهبين الدرار بداس أن سوقيني دد كني الرير كني أنت سود تجني هل كان أنس كني أنجا أما أنك جرسنه هل كان أما إنه وضنا ريركي أردن أنو كأنه ولا ليالو ثم ولا ليالو ثم ولا ليالو أنت أنو وضنه أنت أن إلهي كبقينه أنت أن إلهي دينتي سأن إلالينه أنت أن احترامينه أنت أن كالقعال استصينه أنت أن كالضنبينينه أنت أن يسكو كالسونانينه وأنه إلهي عمل كاس لا إيماننا كالجعيلك يا محبة يا كلا ضمبيسة يا احترامك أنتي أردن الله إيمانينه أيضا السلاسة هذا مركها واحد كجرتها والإلهي أمسنا وحن أصمينا إن أنت صار ضمبا وحاول نولف في عننا إلهي جل وعلا وحن إلهي كبريه إنه إلهي سبحانه وتعالى نوافج إلهي وحن كبريه إنه إلهي سبحانه وتعالى نوافج خير الله النوافجي إيه محا ماشي كجرا ولا ليال ما أنت أن نكبحنا من ويشة عذر ربا كإيماني ما أنت عذر كان ربنا كهالله حوي عذر ربا كإيمانية وإنتس وناقم محو كجرا وعافمات محو كجرا عافمات محو كجرا إلهي أمر كي صلقاته النبي عليه الصلاة والسلام الرعوة الدديسي انت أنو هايسن قريقا ناكو هاينو انتس قريقا maxaa meesha ku jira amal walban qabanayno waa wanaag ilaahayna jalla wa ala wuxuu inoogu sheegayaa quraanka wuxuu leeyahay maxaan u nimi tii aan u nimi ayaanu rabnaa labada qof ilaahay jalla wa ala bisuura caama ayaa laba arrimood weeye labada arrimood ee ilaahay jalla wa ala oo suura caama ay tahay بصورة عامة لبدا الرماد أي تحي وحوي الله نوافج لمانتن إلهي عبسي ديسا إيوانا ولا فر لبدا سنة ولبدا إلهي جل وعلا لبدا قف مسلمين تا لبدا قوم مؤمنين تا أسكو قرسدين محاسكو قرسدين وحاسكو قرسدين إن شاء الله تعالى إن إلهي لو قد دوادو maxaa dhacday xaraanta ka dheeraanay waxaan isku guursanay waa Ilaahay dartii aniguna inaan maxaan ku dhaaday ka kaaftoomo xumaan adna inaad ka kaaftoonto xumaan sidii ba Ilaahay labada qof isku keenay labadii qof ma isku yimaadeen maxaa meesha ku jirta waxay raadinayaan waxa weey waa rida Allah azza wa jalla Ilaahay inay raali galiyaan ya absidi Ilaahay wanaag halka waan sheegno waxaan idhi عملك صالح إيمانك يا عملك صالح يا لجربا لبدا قف إني مر والبر راديان محاور راديان سأيوه لان نلول وناكسن ولا جوه جو
dhinacan kale maxaa meesha ku jirta waxaa meesha ku jirta ilaahay jalla wacala aayadan kale wuxuu noogu sheegay wuxuu leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa labada qof waxa u yimaadeen ay isku guursadeen ay meel wada degeen waxa weeye inay isku caawiyaan labada arrimood cabsida ilaahay iyo camalka wanaagsan cala albiri birigu waxa weeye waa wanaag oo dhan nabigeenuna calayhi salatu salam markii la weydiiyey waxaa la yidhi malbiru yaa rasuul allah waxaa la yidhi rasuulka ilaahayow akhbirnaa cala albiri waalithm wanaagga iyo xumaanta noo sheeg البر وحي صلوات ربي وسلام عليه حسن الخلق ماشا ولا ليال ان شيغي ان سوغنمي ان لبدا قف اي اسكو قبان لبدا قف waxa laga rabaa حسن الخلق akhlaaqda wanaagsan ninka ragana waa laga rabaa qofta dumarkana waa laga rabaa labada haday la yimaadaan cidaasi waa caafimaadaysaa وين عافيماد يسات اللبان عافيماد كأهليان إلا وح اسكو جورسدين لبضة قف وحوي إن يباتوين بدن باجي قف قبل آذن كانوا تقول كلاعين فرستريشن نبضن باكفرا باهب بدن باكفرا حق رجع هذا نجسو وحجرته إن وحو يسقو جورسدين إن والبسبب أسباب الصومالي ضد الصومالي أو جورسدين لبا ريموت بنان مكتسل والدراسة لبا ريموت بنو هذا جور كمركل جورسدين يبى الصومالي بقى عقليته waxa ku jira ninka ragana wuxuu maleynaya hadii lagu hadu guursanay waa inuu hada nin nafaqeeyo oo kaliya lacag bixiya reerkoon masruufo cidi maxaad u baahantiin maxaa niga maqan ma intaas bas gareen qofta dumarkaana mala caqliyada ku soo gashay waxa weeye wadlan ninkan uu baahan yahay wuxuu baahan yahay dharka in loo dhaqo in maxaan ku raadayay dheeryaha in loo xalo in cunto loo kariyo waxyaalo badan buu baahay badan baa jirto baahidaas iyun baan rabaa inaan ka daboolo waxyaalo kaleena وكلام بجو والله ليال من ضمن باكج كم التاي it is one of the package that we have it when you get married ما كان تقول سنو وباكج هذا كم إن أضيقنا محاكل مصروف شرعي الإسلام وين مصروف محاكل هذا وبحيه قفت الضمر كان وحي لو بحيه قريق لو بحيه هنا لما يسو باكج كم دي لكن أرنتو بيجي كوين شريعة الإسلام قاعد يسود الجزء لبع الريموت إنه نكنا لبع الريموت بالله جربه وحق الدمر كأ وقفت وقبه دمر كانوا حلا جربه حق نك رجع لبع هتسفي عن عقل جنوفرنه أن لقي سنه شريعة الإسلام كان كتير تحسنوا حكم التهاي نوشر نم وحلا جود النولي الله نفهم سي نك رجع أنا وحلا صاري محل صاري وحلا صاري نفقة دي محركة يتلبان المعاشرة الحسنة واتنا جمع الرجيه هو صوماليي الله نفهم سي معاشرة حسن كمعاشرة وناكسن دول عدينتا سودوينتا كورهينتا كدرياليدا هبيني dareenka احترامك dareenka kalsoonida dareen intii oo dhan waa package laga rabo qofka ninka ragga inuu qofta dumarkaas siiyo qofta dumarkaana waxa weey iyadoo ilaahay adeecaysa وأمرك إلهي قادنيسا إن أي وعد يعضو وحو أمر وناكسن معصيكم مجرته هدو معصيك لا طاعة مخلوق في معصية الخالق بالنبي عليه الصلاة والسلام مجرته محانكو الأداي إن لا أضيعو قف بني آدم لا أضيعو يسقو إلهي الخلاف مجرته حماشي كجرته ولا لا توفيق الله نوافجه وحماشي كجرته وحوي إنه السداس وحن ربنا إن نعاف ما ضمربنا ها إنا وناك سنة مربناها وحلو عافي ماذا ولا لو الدين ولا لا يالتوفيق على هنا مش أنا وأن كهالليو حضاد في رسالة سو حلقة يا بعين سليديون لبدا قف مقدح شقينية لبدا قف حدود والله ثم والله بين الشيء مايو هدو عافيمات قريقة جيرو نينكي ناك تدحدود هدي وعافيمات كدشو المهانة وعافيمات يا هدي لكن قفت لبدا يسقبتها دحدود هدو عذر كدشو عذر كحسدك عذر كمحان كل هذا حقدك عذر كمحان كل هوس حتى الحلقة يا بينا هذا نيفرفرو كتاب كاس وحلقة يا بينا السلادة نيو محو كهالي نيرسس وحلي لا بجرا كنترول ما فهمت امباور وحلي ده وحوي وات كنترول يسقفتي وحلي هذا ما هاد لي كرتيد انا قاع كله انا كو كنسداي انا كو خبا انا كساس
waxaa laga yaabaa sometimes dhinaca kalena inay kasoo bilaabmato. waxyaalada cudurkaasoo dhan wuxuu ku abuuraa jiilka soo socda. hadalladayd waxaa ka mid ah waxaan markaan hadlayo ninkii naagta markaan ka hadlayo labadaas qaba markaan ka hadlayo it looks like waxa loo maleeyaa in labadaas qof inay wanaagsanaadaan ka wado. wallahi thumma wallahi walaalayaal tawfiiqda allah ana waafajiye ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay na fahamsiiyo wanaagga labada qof dhexdooda ka dhalanaya jiilka soo socda ayaa qaadanaya. xumaanta labada qof dhexdooda ka dhalshaa ilmaha yar ee ku barbaara xumaantaas ayuu guriga la tagay. narcissist waxa la yiraahdaa imka aabaha raba inuu guriga dhan controlo hadduu arko cunuga yar wuxuu u malaynayaa waxyaalada cilmiga maxaan ku idhahdaa cilmiga nafsiga wey waxa la ogaaday in qofkan maxaan ku idhahdaa dhibaataynaya dadka almutaaddi xadgudub kale ee ku xadgudbaya reerkiisa ama xaaskiisa ama qoftan ku xadgudbaysa odaygeeda waxay ka baratay maaha guriga kamu dhalanin waxay ka baratay guriga aabaheed ama isaga guriga aabihii ayuu arki jiro undhaha saaray aabahoo saa u tumaya islaantii oo dullaynaya xataa tumistoo keliyaa tama wardadii ummadda islaamkow tawfiiqda allahna waafaji soomaaliyey marka la leeyahay wuu ku xadgudbaya marka la leeyahay xadgudubkaa 3 nooc baa la yidhaha waxaa la yidhaha jasadi physically وجسدك مركو قعنو قاضوي وحال mentally عقليا التعدي العقلي وعقليا مركو كدبي مضحة emotionally ومركو نفتي دبا ودبي وهوس ودغيو ومركو ليه محاج شيغي سادب وحصل الله هذا وقفتي لنادي عقلي قبتي وح والبا قبتي ايا مركو الله الله وليها ادو لا حول ولا قوه الا عنق قاهر ما اركي اما عنق تاير ايا كا عقلي بدن واو المقادني لا صح هذا مو قادن لكن الشاب دانتبا قفتي وحو كو ابوري انو يري دلي بابا تحيبه هوس با جرتا qoftii dumarka laga yaabo odaygii inay ku leedahay maxaad sheegaysaa adigu khayrka baa ku dhaamo maxaad sheegi ana baad ii booteen taqana khayrka baa ku dhaamo isagina waa la duleynaya maxaad sheegi waxba laga ma kala qaadan marka walaalahay tawfiiqda allahna waafajiyo maxaan niri labada qof ilaahay jalla wa ala isu keenay waxa weey waxa iskugu yimaadeen in ay laba arrimood in ilaahay ugu dhawaadaan تعاونوا على البر والتقوى با إلهي دي اسكو عاوية إلهي كعبسي إيو وناق لقباني وناق لقباني محوية وناق لقباني وحوي أخلاق ده وناقسن سو النبي قلنا الله شيء عليه وناق بس ديسة وحوي أخلاق ده وناقسن بالنبي عليه الصلاة خلق وناقسن ولا لو قفي عن باتا تأوه الرئيس أني إلهي جل وعلا وحو إلهي سبحانه وتعالى أبو هريرة إلهي سبحانه وتعالى إن أديقا كاور حيو كدر يلو كجعلادو كلا عيل كتصوم كادم بيو كلا تشدو هذا الكا قيميو أديقنا كو قيميو أيا إلهي أعبرتي اللهم لك الحمد إله بان مباهم بقي كل جوق قاعد جوق شرف يعز يكرامه أياديتا يعني جوجست عاد جوجت أنا قاعد مدح يجيبات كله قاضي كلمة ده هسه على الربا ولا أديك أنا الساس اللي أيانا أمرية وأنيقو أمرية ما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أيا سيستم كاسوس عري إلا كلا الضنبيو مركي لك كلا الضنبيو يا لوناق إيمانية ماشي قفت الضمر كان وحوي النبي قول سبحان صلوات ربي وسلامه عليه مركي عائشة أي ويديس يا حق وقوله رجع أي تري رجع إياه حق كله أو محن كل أداي حق محن كل إكرام محن كل أداي respect احترام إياه حق كله وحول النبي عليه الصلاة والسلام أمهم هو يدي دمر كان بويدي دمر كان بيت عائشة رضي الله تعالى عنه أي حق له حق كرامة كلا ذنبين محن كل أداي سودوين محن كل أداي احترام
iyo weyneyn iyo qadarin iyo xaq ku leh wuxuu yidhi nabigu calayhi salatu wasalam zawjuhaa odayga qabaa xaq buu ku leeyay kalaam buu ku leeyay soo dhaweyn buu ku leeyay kolqaad buu leeyay maxaan ku dhaha wuxuu leeyahay inay tiraahdo xabiibi adiga ayaa maxaan ku dhahdaa aan ilaahay jalla wacala ii ka abuuray adiga ayaa ilaahay jalla wacala maadaama aan aabbaha iyo hooyada ka yimi xaggii maqaamkii aabbaha iyo hooyada inaan adiga ku dhigo wey kala dambaystaas adigana walaal khayr allah ku siiyo marka la leeyahay hooyadii uu 3 jeer yahay qoftanaad keentay waa adduun dhan oo ilaahay jalla wacala ti adduun iyo aakhiraba ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu asturayay wey midda ugu horreysa iimaankaaga ayay kaamil ka dhigaysaa iyo taqwadaada ninka raggaa kaamil maaha baa layidhi taqwadu lahaado ha lahaado intuu rabo ilaahay ka cabsi ha lahaado ilaah uu ka guursanayo gabadhii baa ilaahay jalla wacala wuxuu ka dhigay tii iimaankiisa buuxinaysay marka walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiyo gurigeenna caafimaadkiisu waxa weeye inagoo amarkii ilaahay qaadanayno inaan kala dambayno oon is-ixtiraam halkanna waxa weeye maxaan ku idhahda wanaaggiisa caafimaad darradina waxa weeye waa markii la kala dambayn waayo markii maxaan ku la is-ixtiraami waayo markii kalsooni la istusi waayo markii maxaan ku idhahdaa kalgacayl la istusi waayo intii oo dhan waxaa ka dhalanaysa walaalayaal tawfiiq